gudoomiyaha tuulada Kalabayd ee gobolka Gabiley Cabdikariin Cali Muumin Shiine oo maanta wareysi gaar ku siiyay xafiiskiisa tuulada Kalabayd telefishinka caalamiga Somali Cable TV ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda tuulada Kalabayd iyo baahiyaha aasaasiga ah ee u baahan tahay bulshada oo gabi ahaanba deegaankaasi ku yar sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax isagoo arintaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa اللهم صل على محمد deegaanku waa iska fiican yahay deegaanku horta waa wax soo saarkuna waa dhaqaalaha iyo dalka horumarkiisa maadaama aanu lahayn beeraley xagga beeraha sanadkan waa iska fiican laakiin in wax loo qabto oo baahi xoog leh ay rabaan dadku beeraleydu la kabo oo la dhaqaajiyo go'aankii madaxweynaha waanu taageersanahay waana maqalay go'aankaasi oo soo gaaray in saarayaashii lagu celiyo go'aankaasina mid hambaliyo aan ugu dirna madaxweynaha ayuu haa inta ka sokow magaalada haddaan xaaladeeda ka warrabo magaaladu waa Kalabayd wallahi waa arrinkeedu waa iska liitaa xagga dhaqaalaha iyo wax soo saarka caafimaadka kale waa iska liidataa waxbarashada waa iska liidataa in wax loo qabtay u baahan tahay taana waxaan ku sugaynaa dawladda cusub inay aad u gacan qabato rajana waan ka qabnaa in dawladda cusub wax loo qaban doonto takale haddaan ka warramo baahiyaha magaaladu waa iska badan xagga waxbarashada xagga caafimaadka waxyaabaha inta ugu sii daray waxa weeye dhinaca wax soo saarka wax la qabto magaalada kale baahiyaha ka jira waa waxa weeye xagii baahiyaha saliimadii oo kale waa iska badantahay taana degmadan warbixinad dhowr jeer dowladda soo qabsanay ballanqaad oo noo sameeyay marka waxaan ka doonaa waanu sugnaa insha Allah in hawsha imka gacanta qabto ta kale xagga biliiska oo kale dibadgelin way fiican tahay biliiskuna baahida kaliya imka qaba waxa weeye baabuur ma ay magaalada baabuurkii xagga biliisku ka shaqeyn lahayn imka Kalabayd oo kale waxa uu sameeyay sideed tuulo hadii meel wax ka dhacaan gaari aan ku tagno oo aan wax ka soo qabano ma haysano biliis ku kala gaari male maamulka magaaladu gaari male waxyaabaha soo meelay waa baahiya jira waana noo qoray degmada maamulka oo ka mid yahay hormoodka yahay maayirku waana ka codsanay dawladda noo ballan qaaday waxaana rajeynayaa in sida dhaqsaha badan leh ay wax baahiyaha u gudbinay wax noo qaban doonaan marka arrimahaas oo marba jira waxaan aad ugu baahanahay xagga dhakhtarka kale ma haysano waxaan balaas leeyahay oo imika hadii magaalada Gabiley kabado tuulooyinka hoos yimaada magaalada tuulo hadii qof xanuunsado ama baahi ka dhacdo caafimaad darro dhakhtarka ku gaadho oo gaari ambalaas nama hayno gaariga ambalaaskana waanu reportkiisa waanu qoray waana ku sugan wasaaradda caafimaadka baahiyaha aan gudbinay magaalada ka jira maayarka loo gudbinay maayarkuna ballanqaad loo sameeyay waana ugu mahadnaqaynaa sida fiican loo shaqeeyo maayarku hadba baahida jirtana uu naga dhageystaa waanu aqbalaa ballan uu noo qaadaa inkastoo baahi fara badan ka jirto degmada haddana kolba wixii noo qaban karayo uu noo qabtaa takale mashruuca imika beeraha ee bilaabmay waxaan doonayaa inuu horumar ku noqo wasiirkana oo ku hambalyeelana uu noo iman doonaa baahiyaha jirana uu eegi doonaa wasiirka beerahana Axmed Muumin aad baan ugu mahadnaqayaa tallaabada wanaagsan ee imika wada ee uu qaaday ee uu ku marayo gobolada oo dhan iyo tuulooyinka marka waxaan iska codsanaynaa in baahiyaha jira barasaabka cusub ee gobolka loo soo magacaabay Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax aadna soo dhaweeyay waa barasaab tayo leh oo qiimo leh oo runta sheega oo baahiyaha jira sheega waa barasaabka barasaabada Sikriye Nuux Ibrahim Somali Cable gobolka